ديشه والله سالم horta haddii oo aad fiiriso wadanka macnaha marxaladda hadda aan ku jirno iyo haddaa fiiriso macnaha kooxaha maanta horyaalka Soomaaliya ka dheelayo iyo macnaha kooxaha caalamka hadda isku fiiriso macnaha actionka ay sameynayaan iyo macnaha si dhaqaaqa ay sameynayaan in hal way in hal meel ay wada socdaan macnaha maanta haddaa fiiriso kooxaha caalamka ka dhisan waxay macnaha ku mashquulsan yihiin si ay u keensan lahaayeen ciyaaryahano oo ajaanib ah aan macnaha oo wadankaas aan u dhalan kooxaha Soomaaliya maanta ka dheelaya haddaa fiirsana runtii oo sariicaadane isla ciyaaryahano oo Afrikaan ay ku mashquulsan yihiin inay dalka keenaan ayagoo macnaha u arkaayo si kooxaha caalamka dhisan kale u arkaan in ciyaaryahankaas oo keenayo taageero badan am in uu keenayo dhaqaale iyo guul iyo magac aniga kulli waxaan aaminsanahay haddii ciyaaryahano ajaanib ay wadanka ku soo batnaa horyaalkiisa laba faa'iido horta la helaa midna waa macnaha horyaalkii wuxuu noqonayaa horyaal aan macnaha oo sahal in lagu guuleysto macnaha koox kasta waxay keensanayaan ajaanib oo kooxii horyaalku waa adkaana horyaalkiina magacu yeelan waayo intaas oo ajaanib maanta horyaalkiina ka dheesho waa mid laakiin waxa aqabad ku noqonaa ciyaaryahanadii kale soo bixi lahaay oo macnaha Janis ku heli lahaay in kooxihii hadii ay macnaha la heli karo in macnaha la fiiriyo ciyaaryahanada da'da yar wax hadda soo baxayo in ayagana Janis iyo waayo bari kuna anfacayo waa kuwa qarankan u difaacayo ciyaaryahan hadda maanta aka keentay Kenya ama Uganda ma umaleyna national team ay ku dheelayaan marka hadii aadan macnaha dhalinyarada laakiin Ismaaciil haddaad eegto